بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan u malaynayaa waa ilaahay mahadi haddii la helay cid dhigta ama dejisa ama isku xilqaanta. waxaan u malaynayaa 1996 muctamar Soomaalidu ay magaalada Göteborg isugu timi ayaan ka hadlay mustaqbalka jaaliyadda Soomaaliyeed ee soo socda siduu u ekaan doona, maxaase inuu sidaa u ekaada maxaa keeni doona. runtii waxaan filayay unbaa dhacay, waktigaa waxaan filayay ayuunbaa dhacay. waayo Soomaalidu waxay u timid dad multicultural society ah, dad dhaqamo kala gedisan haysta oo dadka badhna majority yahay badhna minority uu yahay. oo inkastoo liberal la yahay oo xorriyaddu bannaantay oo kani bannaanyay, haddana majority-gaa design gareeya way of life-ka bini aadamku meesha degani ugu noolaanayo, hadday tahay education waxbarasho, hadday tahay mu-asasaadkan iclaamiga iyo media iyo wixii la halmaala, iyo hadday tahayba qawaaniinta iyo systemska wax loo dhaqayo. minority-gu markaa wuxuu ku qasban yahay haddii aanu minority soo jeeda ahayn inuu waxa majority-gu wado, bulshada badani waxay wado, inuu raaco bulshada kuwa laga tirada badan yahay. halkan idinka ah kuwa laga tirada badan yahay. bulshada minority-ga waxay idhaahdaan waagii hore saddex waddaa bannaanaan jirtay bay idhaahdeen inay maraan. haddase bay idhaahdaan mid dunidoo dhanba kama suurtagale labunbaa bannaan bay idhaahdaan. waagii hore waxaa bannaanaan jiray idhahdaan nidaam la idhaha ghettos oo dad bulsho la degan laakiin qafilan oo waxooda meesha ku haysta wax walba. laakiin markii internet iyo t v iyo beliya baasir iyo waxa kale soo baxeen dunidu way isu furantay. marka meel gaarabaaban jirinba oo aad ku dhuumato gaari ma jirto. waxay dhahaan laba mid unbaa kuu bannaan: milan assimilation, inaad iyaga ka mid noqotid, iyo bay yidhaahdaan milan la yaro qurxiyo la yidhaahdo integration, inaad dadka waxna la wadaagtid waxna ka yeelatid. assimilationka adduun layskagama bixiyo, waayo de qofku isagaa qancay inuu kaa mid noqdo, marka isagu uu maydhmaya uu kaa mid noqonaya. kan integrationka rababaa markaa ah macrakada, goobta dagaalku waa kan. maxaad igala mid noqonaysaa, maxaad se gaar u yeelanaysaa. haddaad muqafal tahay sideenna, afkana integration baa laga odhanayaa, systemka lagugu wadoo dhamina waa assimilation. waa adun muqafalka meesha jooga ee le kolba projectka la yidhaha integration inta looga hadlo assimilationna loo sharxayo ayaad ahaanaysaa. ilaa iyo markaad uun labada dhagood ku soo jeedaan baad wax ogaan kartaa halkaynu marayno dadka badhmala. haddaba haddii aynu isnidhaahno ubadkeenna aan badbaadino ama mustaqbalkeenna aan badbaadino, maxaa inoo muhiima? waxaan leenahay saddex shay mid uun weyna yeellaa, haddii kale waddo afraad baa bannaan oo sharcigu sheegay. saddexda shay ee inoo bannaani, ka koowaad waa fahmi lwaaqic. dadkaynu la noolay waa inaynu garannaa. markaad garataabaad garan kartaa maxaad ka qaadan kartaa, maxaad ka tegi kartaa, maxaad kaga duwantay, maxaad kala mid tahay, maxaad ka ilaashanaysaa, maxaad ku darsanaysaa, markaasaad garan kartaa. ka labaadna waa tasallux iljayid, waa inaad hubaysantay. sociology-ga laynoo sheego ama social studieska la sheego ee bulshooyinka iyo sida loo milaa waa dagaal, waa bulsho la rabaa in la liqo. marka intaad hubaysantay waanay suurtagal ahay in lagu liqi karaa. intaad cunaa xagxaganaysa aanu qofku dib kuu liqi karin. ka saddexaadna waxa weeyaan almujaahada wa khawd ilmacraka, inaad markaa dadaashid oo sidii aada isu ilaalin lahayd
ama aada wax u dhowran lahayd ama waxaagaad u samayn lahayd aad samayso intaa haddii la waayo bay yidhaahdeen hal wado qura bannaan taana soomaali loogu taagi waa alhijra waddada qura kale bannaan sharciyan marka la eego waa tanu haddaba walaaladii iga horreeyay in badan ba idinka warramay ama waaqac kan iyo lagu nooliyey sistemaha waxbarashe ka jira waxaynu tasliix samaysan karayno wixii la caawa laga hadlayay masaa'ilkaasun bay ahaayeen waxay leenahay waaqacan aynu environmentku qofka bini aadamka waxay yidhaahdaan oo miyaad tahay bay yidhaahdaan waxaad aragto iyo waxaad maqasho iyo waxaad cunto mooyaane ma wax kalaa tahay bay yidhahdaan caqli baan leeyahay caqligu informationka uu helo qurun buu process gareeyaa caqli aan information ba helaynin ama information saxa helaynin dee waxyi kuma soo dego waxyiga ambiyada iska leh cidda waxyi ku soo dego quri waa ambiyada ama dadka inta soo hadhay waa waxaad maqashay waxaad aragtay iyo waxaad cuntay baad jidh iyo nafsiba tahay intaasubaad ka samaysantay haddii waxa aynu maqallo iyo waxa aynu aragno iyo waxa aynu cunnaaba madmadowgu ku bato adna qof madow baad hadday intaasi wax ka soo qaad la yihiinna inana waxaan noqon karnaa maxay wax ka soo qaad leh matalan waddanka aynu degannahay educationka ama education miyaa idinku tidhaahdaan waxaad doontaan dhaha oo waxbarashada waxaan la yidhaahdaa waxna waa cilmi waxna waa tarbiya soomaaliya maxaa la odhan jiray wasaarat tarbiya wa tacliin soo lama yidhaahdo waxbarashada iyo barbaarinta waxaan maalan waxaan odhan karaa dugsi sare iyo dugsi hoose iyo dugsi dhexo oo dhan labadan language baa wax faa'iide leh ku jira cilmiyan haddii loo eego languageka science waa mathematics iyo languageka wax lagu dhigayo ama af ingiriis ha noqdo ama af carabi afkana these two languages mooyaane waxa kaloo dhami waa iska meesha in laguga hayo in really waa sidaa si kale haddaan u tilmaamo ilaa iyo intaad 18 jir gaadhaysa waa in suuqa shaqada lagaa hayaa ilaa hadduu 15 jirku shaqo galo dadkuba shaqo heli maayaan intii hore shaqo loo laayay marka ilaa iyo intaad 18 ka gaadhaysa waa in suuqa shaqada lagaa hayaa that's the policy of education westernka iyo dunida intiisa badan yaalla waxaa la isu dhigayaa iyo dadka wax dhigaya ma dadkan caadiga magaalada jooga mise qaybtaa cidda joogtaa waxay u badantay ama waa atheist ama waa abatheist ama waa pantheist ama waa agnostic ama waa ignotic ama waa skeptic waxaan sheegoo dhamme waa caqaa'idda kufriga ay aaminsan yihin oo wada ilaahay diidan dhammaantood atheismku waa ilaahay ma jiro abatheismku waxa weeyaan I don't care sidaan ilaah jirin baan u noolaanaya pantheismku waxa weeyaan real worldkaynu arkayno qoro waxdatul wujuudka waxaynu odhan jirno kale agnosticku waxa weeyaan ma hubo waa adiladu evidenceku labada dhinac way isu leegiin ignosticku waxa weeyaan kelmadda god baaban macna agtayda ku lahayn kani waa agnostic kana waa ignostic ayaa ay wasaaradda waxbarashada ilaa iyo universityga ugu sarreeya ilaa ka ugu hooseeya mostly dadka jooga noocaas ay u badan yihiin mostly waxa aaminsani ba ku yari waxaan u malaynayaa inuu alxamdulilah odhan lahayn hadday ahlu kitaab u yihiin hadday yuhuud iyo kristan yihiin dadka wax dhigaya way ka fiicnaan lahayd systemku sida tan laakiin kuwaasi sideenay minority ku yihiin halkaa marka la joogo marka wasaaradda waxbarashada la joogo sida muslimku minority u yahay bay iyaguna minority u yihiin idan bii'adaynu ilmaha keennay eenu leenahay wax ku baro waa kaa isaguna ma gaadhin xaddu tamyiiz waktigii wax kala sooci lahaa umay dhismin malakada ama awoodda inuu maxaa saxa maxaa qalada u kala socda ninka waxaa aaminsan baynu nidhi 8 saacadood maalin walba la soo joogo qofka bini aadamka waxaa raadeeya waa guriga waa dugsiga waa shaarica iyo suuqan iyo meeshan uu joogo waa masaajidka waa miidiyaha waa waxyaabaha tirada badan le aynu joogno laba hal marka laga reebo inta kale dhan bay u wada socdaan inta kaloo dhami waa isku system
laba hal baa ka soo hadha guriga iyo masaajidka ka soo hadha labadaas inaga effective miyay yihiin intaa ma waajihi karaan inta kale waa system si loo dejiyey oo sidii loo dejiyeyna u shaqaynaya oo shaqadiis ku fiican tahay weligaaba dhe ilmahaygu a grade buu keenay a grade kufriya in badani keenta a gradeku muxuu taraya haddaanu aakhiraba rumaysnayn a grade aan ilaahayba rumaysnayn muxuu ku taraya waxay isweydiinta le markaa waxay tahay gurigeennu iyo masaajidkeennu ma u babac dhigi karayaan dhibta intaa leega jirta oo ma yihiin dad kala soocaya maxaynu qaadanaynaa iyo maxaynu ka tegaynaa wuxuu markuu diin iyo caqiido noqdo iyo akhlaaq iyo dhaq iyo kuwaa markuu noqdo dee qaacidada sharciga waa lakum diinakum waliya diin wa kuntum khayra umma ukhrijat linnaas baa gruubkaa lagu tilmaamayo alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati waraditu lakum alislaama diina iyagu waxoodii way fudaydiyeen markaan leeyahay way fudaydiyeen hamoodin marka laga warramayo ilaah ma jiriyo waxaa falsafad waaweyn in loo baahan yayo in cambridge la tago مثلا ilxaadku wuxuu leeyahay dumisbook waxaa la yidhaha kutub alaqbiyaa dadka aan waxba fahmin buugaagta loogu talagalo buugaag ilaahay ma jirto aqbiyada loogu talagalo hataa haddaad hore u fahmi weyday philosophiga sare mid qabiga loogu talagala lagu hayaa young atheist baa la hayaa books loogu talagalay ka yar waxay sameeyeen yani wax kasta oo bini aadam lagu lumin karo oo waxa ku saabsan ayaa loo fudaydiyey waxaad u malaynaysaa basaskan cascas ma akhrideen ee ingiriiska wadaan waa ka mida waayadan dhoweyd labelka ku dhegsan qoladaasaa bixisay lacagta la baxday dabeetana dowladda hoose ee london baa ugu dhejisay labelka ku dhejisnaan jiray wuxuu yihi there is probably no god stop worrying and enjoy yourself waa labelkii ku dhejisnaan jiray bahalkan cas gaadhiga cas buu ku dhejisay marka ilaa xad buu joogaa berigii hore wuxuu ahaan jiray atheismka iyo waxaan laga warramayaa muctaqad qof haysto nin filosofara nin mufakara nin waxakana wuxuu doonaa iska hada muctaqad qof haysto laakiin waa diin hadda diimaa ka mid a kursiga adyaanta meelaha lagu doodo kursay ku leedahay kursi diimeed london churches bay leeyihin non religious churches baa ka jira london kiniisadaha diin laawayaasha jira oo la yimaado oo axadda isu yimaadaan oo wax laga akhriyaa waxaan uga dan leeyahay ilmaheennu wadcigaasi buu ku dhex nooliyey haddaa idinku maqaaxiyaha fadhi ku dirirka joogtaan iyo masaajidda isagu wuxuu la nool yahay dadkaasaa wax u dhiga dadkaasuu la dhaqmaa dadkaasuu la joogaa haddaba maxaynu u baahanay waxaynu u baahanay inaynu helo ilmo soomaaliyeed oo muslima ilmo soomaaliyeed oo muslima ilmaha soomaaliyeed ee muslimka ahi waa inuu caqiide helaa oo si fiican caqiidadiisa u fahamsan yihin waxa uu diintu haysto waa inuu difaacan karaa diintu haysto waa inuu difaacan karaa waxa lagu difaacaya hadday caqli tahayna qur-aankay ku taallaa qur-aanku adila caqliya qur-aanku quraysh baa lagula hadlayay markii koowaad soo maaha quraysh miya inuu qur-aan yahay rumaysnayn may rumaysnayn haddaa siduu qur-aanku daliilu ahaa adilada caqligaabuu isagu sidaa daliil caqliyaa ku jira oo qofka bini aadamkaa qancinaya ina waxaynu u naqaanaa qur-aanka in loo sheego u naxay nin aaminsan qur-aanka laftiisa adilada caqligeed ku jirta qur-aankaasaa la doodayay oo xujo ahaayo ka dhaadhicinayay idan waxaynu u baahanay ilmahan inaynu caqiidadiisa dhisno waxaynu u baahanay inaynu luqadiisa afkiisa dhisno afka soomaaliga waa culture buu sidaa dhaqan buu sidaa diin buu sidaa xidhiidh buu samaynayaa dad buu ka tirsan yahay haddii kale dabadu ka go-aya ilmuhu cidduu afkiisa yaqaanaa buu ka mid yahay haddaanu soomaalida afkeeda aqoon that's why aanay u imanin maqaaxiyihiinna iyo masaajidiinna maxay u iman waayeen waanaydan afgaranayn de waanaydan afgaranayn marka ma satisfy garayn kartaan waayo ismaba afgaranaysaan waxaad ka hadlayso waxa kula qiimaa badan leh habaryartan iyo eedadan aad ka warramayso dadkan aad lacagta u dirayso waxaasoo dhan isagu kitaabkiisa kuma yaaliin saa daraaddeed laba adduun laba qof oo laba duniyood ku kala nool oo saqaf u wada hoyda un baati gurigan yare waa saqaf idinka dhexeeya
laakiin laba caalam oo kala gaara baa joogta haddaad rabtaan inay isku caalam noqotaan waa in af soomaaliga bartaa haddaa af soomaaliga uu barto haddii aad af soomaaliga ugu taag weydo oo islaamnimada barto insha allah bakistan yaro muslim uu kuu noqon ama turki muslima oo madow waa iska turkishka muslimka ah dhib ma leh waa inuu muslimuun cala laqal laakiin soomaali maaha ama haddaynu rabno soomaali muslima inuu ahaado waa afkan baa soomaali lagu yihi idan waa inuu afkanna bartaa diintanna bartaa afkan baa waddan iyo dhaqan iyo culture iyo dad iyo wax jira ku xidhaya afkan baa identity u samaynaya haddii kale diinka intuu ka bartaana waxoogaaga af ingiriisiga qolyaha ku hadadle iminka soo islaamay hadda mid 2 sano ka hor soo islaamay baa sheekh u ah shuyuukhda soomaaliyeed oo dhamina waa joogtaa waayo safgaran maayaante isku qolo maaha marka mid heesi jiray oo iminka soo islaamay mid iminka kitaab yar akhriyo islaamay kuwaasaa culamo ah maxaa culamo uga dhigay waxaa culamo dhigay waa kuwan bay isku dhaqayin kuwan bay isku afiyeen kuwan bay safgaranayaan walow aan wax badan ka garanaynin kaasaa u ah sheekh idan afku diin buu sidaa dhaqan buu sidaa culture buu sidaa dadnimuu sidaa afku waa wuxuu soomaali ku yahay intaa kadib akhlaaqiyaadka qadiyadda tani waa qadiyadda qisada luqmaan alxakiim qur-aanka uu kaga warramayo luqmaan alxakiim inankiisa markuu la dardaarmayay wuxuu ugu horreysiyey masalat alcaqiida wuxuu ku xigsiiyey masalat alcibaadaat wuxuu ku xigsiiyey masalat alakhlaaq saddexdaa qadiyadood buu kaga hadlayaa qur-aanku qisada luqmaan alxakiim uu inankiisa markuu la dardaarmayo waxaan leenahay haddaba haddaynu rabno inaynu ilmo iyo dad ilaashanno keli kuma ilaalin karno ninka inoogu brofesorsane inoogu doctoorsane kuma fila labadu dhalay waayo waqti uma helayo baahidoodo dhan ma wada awdi karo hadduu iskuulka ka caawin karo diinta kama caawin karo hadduu diinta ka caawin karo iskuulka kama caawin karo hadduu iskuulka ka caawin karo afka kama caawin karo maaha qof master no oli ma jiro qof bini aadam oo isagu jack of all trade cid ahay meesha ma joogto waxaynu u baahannahay inaynu dhammaanteen xoogga inugu jira ka wada faa'iidayno xoogga inugu jira dhammaanteen macallimiin baa inaga buuxda culamaa inaga buuxda kuwa diin garanaya inaga buuxa kuwa scienceska iyo waxaan kale la sheegay garanaya inaga buuxa kuwa af soomaali garanaya wax walba inaga buuxaan laakiin waa resources wada dayacan waa resources wada xamaala bes gaalada inaynu xamaalla mooyaane aan wax kale la haynin idan waxaynu u baahannahay resourcekeenna si inaynu urursanno oo aynu wax soo saari karnaa waa waxaynu u baahannahay haddaad maqasho waxaa ma awoodo sax maaha qur-aanka ilahi wuxuu ku leeyay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wasaha taa macnaheed waxa weeya wax allaaliya wuxuu qur-aanku sheegaya bini aadamku u awoodaa hadihi caqiida wax allaaliya waxa qur-aanku sheegayo bini aadamku u awoodaa waxay yidhahdaan haddaad wax istiraahdo waxaa ma awoodid waa waxaana doonayninun waxaynan rabin inaynu qabanno aynu ku tacliil uga dhiganaa ma awoodno waxay culammadu yidhaahdaan qur-aanku markuudha ogolya inaad wax awoodin oo la yidhahdo daqdu lmujtamac iyo daqdu kada iyo daqdu kada iyo daqdu kadaaba kaa horyimo suurtagalkaa ma aha markaana waddo quruu kuu ogolyahay waa waman yuhaajir fii sabiili illaahi يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه marka qura quraanku ogolya inaad wax awoodine waa markuu wadada ku furo inta ka sokaysa wada awooda taa macnaheedu waxa weeyaan waxaanaynu ka waramayno dhan weynu awoodnaa waxaanu ka waramayno hadday iskuul tahay islamic school oo samayn karnaa hadday manaahij tahay manaahij waa qoran karnaa hadday madaaris tahay madaaris waa samaysan karnaa laakiin bilaahi calaykum laba halba waxaynu u baahannahay inaynu qiimayno waa nin badan ku celceliyo midi waa maamulka iyo wax wada lahaanshiyaha haddaynan waxba isu ogolaanin waxba ma samayn karno masaajideenu muran bay ku jiraan jaaliyadaheenu muran bay ku jiraan suuqeenu muran buu ku jiraa wax walba muran war bini aadamku waxaa inta maslaxadaabu ka gala masaajidkan maanta anigu waa inaan isweydiiya masaajidka maxaan horta uga baahanay inaan salaada ku tukado
ayaa keena qur-aanka intaa hadduu igu dhigo satisfied baan ahay waa inaan dacmiyaa ma inaan maamulka qabtaa unbaa masaajidka ma markaan maamulkiisa fuulaa unbaan anugu ka tirsanay hadduu aniga baahidayda fulinayo waayaan maamulkiisa ku falaya culayskiisa anugu waxaan u baahnay ilmahaygan qur-aanka loogu dhigo waxaan u baahnay markaan imaado inaan salaada ku tukan karo waxaan u baahnay marka kitaab lagu akrinayo xataa wadaadka haysta hadduu wadaad dictatarayo shaqada qabanayo aanu ducayno aska haystee waxaan uga dan leeyahay waxaan rabaa baahidaydii hadduu qabanayo inaan kala cararaaba ka liidata inaan kala cararoon idhaahno ba ka liidata idan waxaan leeyahay koow waxaan u baahanay inaynu dib ugu noqonno inaynu wax wada lahaan karno inaad wax danayn karto adigoo aan maamulkiisa ku jirin inaad wax ku lahaan karto waxay kaloo u baahannahay inaynu jeebkeenna adeegsano tuitionska carruurta imisaa ka bixisaa ya xiisad kasta waxaa laygu yidhi 25 baa ugu hooseeya la yidhi kuwa masaakiinta ha la siiyo ilaa wixii ka sarreeya waa tuitionka waa beranawar ayaad intaa bixinaysaa wadaadka diinta dhigaana 20 pound buu bishii kaa soo saari laayay see la yeelaya inuu wax barta inankanina waa la rabaa oo wax loo dhigo that's not logic ma haddee waxaynu u baahannahay hadday tahay manhaj iyo hadday tahay wax kale wayn samayn karnaa intaba wayn samayn karnaa laakiin we should invest haddaynu ogollay inaynu invest garaysano dee product quality yeelanaya qualitygana waan judge garayn karaa macallimiinta liidata macallinka waa train garaynaynaa wuxuu u baahan yahay investment yar waa la train garayn karaa macallimiintu shaqo marka kale helaan bay iskaga tegayaan way shaqaalaysiin karnaa why not maxaa ka dhigay yani waxaan uga dan leeyahay waxaan aynu rabno markaynu inagu intaa samayno isna waa controli karnaa maalintaynu doonana waa eryi karnaa hadduu kasoo bixi waayo markuu kasoo baxana waa ammaani karnaa iyo waa ku hayn karnaa idan waxaan uga dan leeyahay inaynu wax wada lahaano waa koow iyo inaynu waxaan invest garaysano haddaad rabto inay iska socotaa ma suurtagalaha sidaa aad u ogoshahay mathematicska iyo physicska inaad lacag uga bixiso inaad u ogolaato af soomaaligiisa ma waxay idin la tahay af soomaaligu in ingiriisiga horta ka liito saasay idin la tahay soo maaha maaha xataa luqa ahaan ugama liito addaci daalka luqa ahaan xataa inaan uga liidanin intan yare terminologyga ah la soo ordin alaaliya waxaan kale aad sheegaysaa physicskani waxaan waa terminology rag sameeyey waa guddiyo ka soo baxay afka maaha guddiyaa sameeya terminologyga u ka yimaada luqada inta la yidhahdee luqa ahi kama badnata soomaaliga intay ti haddii laga reebo intuu ammaanaystay tuug buu noqdo dunida waxeed oo dhan uu ammaanaystay haddii laga reebo waa 800 roots kama badna bay yidhahdaan afka ingiriis oo dhame 800 root kama badna bay yidhahdaan dee af carabigana baxraqii la dhigi jiraa 2000 oo ficil ahaan jiray marka waa luqadka yaryar buu ka mid yahay marka sidaa loo eego laakiin waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan war waxaan haddaynu invest garaysano haddaynu maalgelino waynu ku talagalnay inaynu wax ka soo saarno waxbuu noqonaya haddii se aad rabtaan inaad iska fadhidaan ilmuhuna hagaago wax walibana hagaagaan masaajiduna hagaagaan kanina hagaagi maayo wadaadadana waxaan leeyahay war haddii waxoogaa dictatornimaa laydinku sheegay bal idina baxsha yara waasiciya oo aqbala dadku inuu wax idinla wadaagi karo ama wax idinla lahaan karo ama idina ka daayada tii reeraha inaad la timaadaan 4.5kii iyo reer hebel baa meesha war reer hebel wallahi hadduu diinta noo dhigay oo aqbalayna reer hebel hadduu waxaynu u baahanayna siinayo waa inaytaanu diidaynaa gaalkaba oo daba soconaayo madaarista gaalkaba oo tegaynaa waayo waxaynu sanayna waxba ka faa'iidaysaa marka madrasada reer hebel xataa haddaan wax ka helayno waxay tahay inaynu ku tashjiicino ku ammaano nidhaahna waxbaa qabatay marka aniga warkaygu wuxuu kusoo kooban yahay wixii cilmi ku saabsan iyo baabkan culamadan dee u banbaxday baa insha allahu tacaala idinka ha qabtiri doona laakiin aniga waa min baabi tashjiicu waxa weeyaan war wax waa qabsan karnaaye ma rabnaa inaynu qabsanno maanta imisaad u malaynaysaa baa degan waddankan 2,000 oo qof kama 200 oo kun oo qof kama yara one shot qura haddaynu min kun ka qaadno oo sanad ka qaadno waa imisa
200 milyan haye 200 milyan wax ma inoo qaban karaa maxaad u malaynaysa 200 milyan wax ma inoo qaban karayaa laakiin xooggeena layna tusin kunna imikaba waa bixinaa si kale aynuu bixinaa qof aan noloshiisa kun bixino kuma jiro keena ugu yar kun waa bixiyaa say uga baxdaba waxaan odhan karaa 1 sano oo kaafiga iska daysaan baa waxaad doonaysaan oo dhan ku filan koofiga soo ma cabtaan suuqa markaad tagtaan 1 sano ma iska daynaysaan oo ilaahay dartii ma ula baxaysaa koofigaadu that's all 1 sano aad koofiga iska dayso oo aad aqbasho inuu islaamka kuu galo ayaa ku filan waxaan sheegaya 1,000 pound kama badna sanad koofiga cabto kama yara koofiga cabto dii lagu xisaabiyo maalin kasta inaad dhowr cabto bishiiba waa 100 pound baad cabtaa had maalintii 3 koob cabto ama meeshiina kan meelaha qaarkood waa 2 pound iyo soo maaha pound iyo badhiyo haddaad maalintii 3 pound qiyaasay inaad cabto dee almost bishii 100 baad cabtay dhadhow soo maaha 90 pounds 12 markaad ku dhufato waa imisa kun soo kama badnaa idan waa koofiga oo aad ku taageerto mashruuca kan koofiga aad cabto aad mashruucan ku taageertaa islamic schoolna wuu samayn karaa madaarisna wuu samayn karaa waxa u baahantiina wuu samayn karaa wuxuu u samayn waayey waxa weeyaanu fiqada inaga maqan ama kalsoonida ay nafteena ku qabno inaynu wax qaban karno ama kalsoonida aynu isku qabno haddaad kan u dhiibtana waa reer hebel hormuucuna kan haddaad u dhiibtana waa reer hebel hormuucuna baynu salaan marka ama naftaada aanad ku kalsoonayn ama walaalkaaba aanad ku kalsoonayn that's why waxeenoo dhami u bay lahayn anigu marka kelmadaan caawa rabo inaan idhahda ma inaan wacdi idiin sheego mana aha inaan manaahijtan iyo systemkan ka warramo waxa weeyaan war waxbaa qabsan kartaane haddii laydiin bilaabay isgarab taaga sala allahu calaa maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam